nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa aroor kalamaano armaxay meesha dad iskugu tageenay warmaya waa kala wareegniyow weligeeda la ogaa caasimadda Tokyo Japan meel ka dad badan ma jirtaba waqda miya warwaralan kun sheego ee masaarkii lafta gareen oo meel dadka badan iska seedeen dabkii ka kacay bakaaray soo bamiya arooda ani warkaa iga boobinay isiga maskaxdiina meeshan uwad iyo meeshad wadi wax islahba ma ee warkayga dhageystaan idin leeyahay muxaadaradii shiiqeeyaawe maalin horaato lambar 4 agteeda liskugu tago dadka qaadi waysay istaadiyo koonisaa liskugu yimid allahu akbar dadkii dhammaay haddana qaadi waysay arooda ardadkan wax u daneeya la iimaana diinta say u rabaan le iya aroo warnimada cabdullah wuxuu yidhi dadka aanu diin waa rabaan waxaase diidan daalimiin war sheekhu iscafiyuu yidhi mucaaradkii iyo dawladdu ma iscafiyeen war mashaaba la cafi karaa war Soomaaliya culimo waaweyn oo muxaadarooyin akhrisaa waa dhooban yihiin wadaadkan jidka loo xiray oo dadka tirada badan koonas isugu geeyay ma ololo siyaasadeed ba muxaadaradiisu oo nabad iyo nolol ka dambaysa wax kale dadka isku keeni karaan war dogon baa taa wadaadada markii masaajide iyo inay guriyaajo muxaadarada dhaafo wayti lankii wadaad oo meel fagaare dadku walanka sheega inuu iska saado meel ka jartamay warnimada 2020 ama la arkaa Sheekh Kenyabe musharax madaxweynaha yaa ka xiga maxaa se ka reebaya dadkeeno kalamaan waxaan kaaga digayaa qarannimada dubin ku ah xeerkiisa dastuurkana duuduuwe tuur ku ah dalka horumarkiisana ku ah dib u dhac joogta derisnimo wanaag iyo nabadana dareen ku ah qoyskana dubaaqiyo daqar lama filaan ku ah sharafta iyo dadnimada dulmi iyo xadgudub ku ah shariicada iyo diintana dambi ku kabaayira deganaanta guud iyo dunidana halaag ku ah xaqdarra wax loo dilay waana lagu degdegayaa had maadowga laga dhigay war ma bilowdeen hawda iyo nawdaasi waa shaqadiinii waryaaraheen hawda iyo nawda iyo qowdu meeshay maanta ka yeertay waa jubbada hoose waana baar sanguuni ciidamadii dawladoo saldhigoodii fadhiya ayaa shabaab soo weerareen 3 qarax oo 3 gaari lagu soo raray ayay 3 dhinac kala soo galeen dagaal toosina meeshu ka dhacay war ciidankii meesha lagu soo weeraray dawladdu waa isdifaaceen hadda waa la yaabay saaka waxa meesha amiir daba gadoomay aroor kalmaan ay dhageysta shabeelada dhaxan war idinka siinaa dagaal beelad waa soo dhici jiri waana dhici jiri laakiin midka hadda dhacay dagaanka ceel baraf iyo nawaaxigiisa isku jirkiisaba dagaal beelad waa ka duwan yahay ilma iyo duqooshin iyo wax oobo dhilba ka mamnuuce aad dhuq lagu siiyey intee loo socdaa waxa laga raba maxaa yihiin uljeedka laga leeyahay maxaas yahay kalamaanay warnamayaw hawdi iyo inay bugduka dhiidi Kenya booliis jo managana booliiskii hindiga oo chori hansabka ma buuqaha hani arayanga mal managana bilaamayti garaha ka damboyti iyo ilaanki abaabuli antaba nakabsan areng magajanu siin sheegoy naag marin abdililaye ya hubkankeed yaasi an hayas yeleri kiimeela hawsiyay Kenyaatiga hay 25 jirka haysadii sheegi usina magajay gaantaha ka dhikeen maduku madaka ka huko kabasa wale rai wariyo shababka Hindiya iyo shababka Kenya iyo kuwa Soomaaliya awrba wada dhalaadar xaqad kala geelisa warniyo been sheegine shabaab iyo Daesh meel ma wada daaqan waryaaya waxaad sheegaysaan war maahane wax badan baa la yiri dawladdu dhalinyaro ku xireed meelahaas dalal kale oo burcadnimadeednimo ugu xiraabay keentay oo xabsiga ka soo daysay waxaa jira tiro badan oo dhalinyaro ah oo burcadnimadeednimo badda uga qabteen dawladda sheeyahay oo maamulada Puntland iyo Somaliland
loo dhiibo lagu ergey kuwaas dawladdu ma oga miya waxaan idin sheegayaa dhallinyarada aan raadinayno kama raadinayno dalka gudihiisa waxaan ka raadinaynaa xabsiyada shisheeye waryaaraheen madaxweynuhu waa kii maalmo ka hor baydhabo aaday caleemasaarka lafta gareenna ka qayb galay halkaa uu ku soo daahay war madaxweynuhu hadduu baydhabo ku soo daahay roobow macafi yaa oke warnimiyow mayga tatata'an latin baydhawo jannaayilankiisaada inoo hakadaayo meeli ka jarta maayo war xasan daahir weys xafisku afkiisu uga xihan yahay warnimayow war ma waysaan in abwaanguure u sharaxan yahay madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed war dhegiyoonay dhakaar waliska dheye gaasante kukohaya ay ogolaasho ka heliye ayna ku fadohay meeliyeede war caleemasaarka madaxweynaha puntland 25 bisha wixii ka dambeeya u dhacayaa baa layidhi toloma arbaca lagu beegi doonaa mase maalin kale war puntland qarax kama dhicine qarax iyo baabuur ku raran baa boosaaso lagu qabtay talow yaa u soo warramay madaacish baa ka shiftay baabuurka la qabtay raashin maa ku rarnaay warniyo nimankaa waa ka ciidan fiican yihiin jenaraal asad baa u jooga baawe aa iska hadlaysaane madaxweynaha puntland caleemasaarkiisa arbaca laguma aadinaaye madaxweynuhuna reer arbacay kama tirsana war waxaa la yidhi gobollada galgaduud iyo bakool al-shabaab carruur iyo waxay ka afduubteen ganacsato ma shabaabkaa waalan mise adaa waalan galguduud iyo bakool iskuma dhowe fud abbay faadimo waa taas adaa shabaabka meel kastay joogaane adaa waalan walyaalahan dhegaysta idinkuna waxaa ku wareersantihiin shabaab iyo waxaynaa galaya qaraxyo dal somalilan nahay annaguna waxaan ku wareersannahay doorashooyinkii doorasho badnidina haddaaba muuse la doortay waryaaraheen nimayow anigu waxaan la yaabay weliyihii coldoon la dhihi jiray ma isagaa waalan base dadkaa ka waalan somalilan hadduu tago waa lagu xidhaa jigjigo oo lagu soo dhoweeyena haddaa lagu xidha ninka intaasoo ummadii kama wada gardarree see wax ka yihiin war sina waxba kama ahee waa cid walba u jaba ayuu noqday ninkii war ninkaasi in la xidho asagaa kasbaday magaciisayna ku cadda sababtoo ah coldoon waa balaayadoon war anagu waxaana subaysaan garan maaye inuu kala kaxaynaya meesha warkaa u dhanow adeerow gacaliye soo baraha naga daaqa waa ku aqoonsan doonnaaye oo wii imaga maya aqoonsiga gowdhan ani diidi arooda balaay baa ku soo daalnee kala jooga dhagaxaantay ulasha ay midida wadin dhiga iscasiin baa ka wadaa waryaa kaalintiinna ka gala shaqada waddanka ka socoto wanaagsan waryaa idin cafin maynaa naga taga waryaa usha dhiga waryaa waa ku dari maayeen waryaa kala jooga waxaan dagal ahayn daawo lagu waa